بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa injineer xuseen maxamed cabdiraxmaan waxaan idinla wadaagi doonaa tenniska saddexaad oo ahay present perfect continuous tense present perfect tense sidaan hore isugu ogeyn in tennisyada iskugu xigaan aan usoo geliyo laakiin waxaan usoo gelin doonaa qaabka ay isku raacsan yihiin afarta present soo hormarin doonaa past kusoo xidhin doonaa waxaa kusoo xijin doonaa future marka hadda laba present ayaan soo duubay present continuous tense iyo simple present tense ayaan soo geliyay haddana maanta waxaan idiin soo gelin doonaa insha allah hadduu baraali ka noqdo present perfect tense bal aan sii gudagalno cashirka insha allah. Okay, tenniskan wuxuuna leeyahay present perfect tense. Present perfect tense maxaa loo isticmaalaa? Present perfect tense maxaa loo isticmaalaa, maxaa loo adeegsadaa? What is yani casharada wax aan ku arki doono waxay tahay waa maxay present perfect tense, maxaa loo isticmaalaa? Present perfect tense sharcigiisa muxuu yahay? tusaale naga sii. Hadday sidaan hore u ogeyn present continuous tense iyo simple present tense waxay lahaayeen auxiliary verbs ay lahaayeen. Tenniskan saddexaad oo ah present perfect tense waxa uu yeelan doonaa auxiliary verbs kan oo ah have and has. Have waxaa isticmaali doona I, we, you, they iyo plural nouns magacyo jamac ah ama wax walbo jamac ah. Has waxaa isticmaali doona he, she, it and singular nouns. Okay, yaan la isdhihin muxuu ugu dhigayaa tenniska saddexaad muxuu ugu dhigayaa maba ahaane sidii la rabo ayaa loo kala hormarin karaa tennisyada, laakiin aniga waxaan usoo kala hormariyey present qayb kuwa presentiga soo hormariyey. tenniska tira ahaan micnaheed ma inuu tenniska saddexaad uu kan yahay ma ahan, laakiin sida iskugu xigaan presentiga afar presenti, afar past, afar future ayaa jirta. afarta presentiga soo hormarin doonaa, afarta pastigan ku xijin doonaa, afarta future ayaan u dambaysin doonaa insha allah. kala hormarintana wax dhiba ma laha. Okay, ayaa lagu reerin marka. Okay, present perfect tense muxuu yahay? Is used waxaa loo isticmaalaa to denote an action that just finished or completed. waxaa loo isticmaalaa lagu yiri ficil hadda dhow dhamaaday. Finished dhamaaday, completed gabagaboomay waa same. Okay, marka adiga kaliya waa inaad ka qaadataa conceptigaas oo ah in loo isticmaalo tenniskan ficil la sameynay oo hadda dhow gabagaboomay. Okay, ruleska muxuu noqon doonaa ama sharciga? ruleka wuxuu noqon doonaa sharcigiisa subject ficil sameeyihii hadduu have qaata havesi, hadduu has qaatana has waa inaad ku dartaa plus verbkaasoo weliba ah past participle form plus object. tusaalaha koowaad wuxuu noqon doonaa I have played football. aniga kubadaan ciyaaray. Okay, I muxuu ahaa? have u qaatay waakaas ma jeedaa? have iyo has in la wada siin doono ma aha. kuwa has qaata has aad siinaysaa, kuwa have qaatana have ayaad siinaysaa. I hadda have ay qaataa. Okay, he has ay qaataa ma jeedaa? he has eaten banana. verbka asalkiisa wuxuu ahaa eat, presentigiisa eat buu ahaa, past participle-kiisa muxuu noqday eaten. waa kaa he has eaten banana. isaga moos ayuu cunay, hadduu cunay macnaha mar dhow dhameeyey. she has cooked lunch. iyada qaday karisay. they have read lessons. read asalkii hore read uu ahaa, haddana read wuu u qoran yahay laakiin maxaa lahaa read ayaa lahaa. read uu ahaa read ayuu noqonaya marka. they have read lessons. ayaga casharadooda ayay akhristeen, hadda dhow ay akhriyeen oo dhameeyeenba. we have drunk water. anaga biyaan cabnay, waynu cabnay biyaha. you spoken to me. anigaad ila hadashay. it eaten meat. ayadu hilib ayay cuntay. aan u gudubno affirmative-ka. affirmative waa ka hadda soo akhrinayle, wax ma ka bedelna. marka taas tusaalayaal ay ahaayeen. tanna maxaa marka iyadoo affirmative, iyadoo negative, iyadoo question with negative aan arki doonaa. Okay, affirmative wuxuu noqon doonaa he has eaten banana. isaga moos ayuu cunay. she has cooked lunch. iyada qaday karisay. they have read lessons. ayaga casharooda ayay akhristeen. we have drunk water. anaga biyo ayaan cabnay. sorry. you have spoken to me. anigaad ila hadashay. it has eaten meat. ayada hilib ayay cuntay. I have played football. aniga kubad ayaan ciyaaray. Okay, negative-ka muxuu noqon doonaa negative. Okay, hadday waxaan idiin soo sheegay haddii aan dhaho do not tenniskii labaad simple present tense
do not ama don't waa la dhihi karaa ku leeyahay. Okay, short form kii hadda ku tusay bas. I haven't waa dhihi karaa ila negative form ogtahay. I have not waa dhihi karaa waa long form kii hadda aan kusoo sheego waa. I haven't haddaan dhahno waa short form waan soo gaabsaday un. Okay, yaa lagu wareerin marka meeshaan muxuu apostrophe intan itida muxuu soo qaatay alisdiin negative marka muxuu noqon doonaa I haven't played football. I haven't played football. Aniga kubad ma ciyaarin waa la diiday negative waa. Okay, he has not eaten banana. Meeshaan waa dhihi karaa he hasn't eaten banana. Waa dhihi karaa short form waa mid gaaban weey. Okay, he hasn't he has not labadaba waa dhihi kartaa. Saa hore usoo sheegay he hasn't eaten banana waa short form. Long form muxuu noqonaa he has not eaten banana. Isaga moos ma cunin. She has not cooked lunch. Ayada cooked waa la cooked anaga Soomaali iska naaman cooked amana. She has not cooked lunch. Sorry. She has not cooked lunch. Ayada qada maynan karin. They haven't read lessons. They have not read lessons. Ayaga casharadooda mayna akhrin. We have not drunk water. Anaga biyo ma cabin. You have not spoken to me. Adiga aniga ilama aadan hadlin. It has not eaten meat. Ayada hilib ma aysan cunin. Waa la diiday. Okay, question-ka muxuu noqon doonaa su'aal iyo diidma isku jirta. Hadda marka su'aashaan ku hormarinaa. Horey waxaan usoo sheegay interrogative iyo question inay same yihiin. Okay? Yaan lagu wareerin taas. Okay, auxiliary verbs ka banaanka la geen jiray Soomaa marka su'aal laga dhigaay. Su'aal diidma marka laga dhigaayna auxiliary verbs plus not ayaa banaanka la geen jiray. Okay. aan ku hormarno question-ka ama interrogative-ka. Have I played football? Ma aniga kubad ciyaaray? Has he eaten banana? Ma isagaa moos cunay? Has she cooked lunch? Ma ayadaa qada karitay? Have they read lessons? Ma ayaga casharadooda akhristeen? Have we drunk water? Ma anaga biyo cabnay? Have you spoken to me? Ma adiga ila hadlay? Has it eaten meat? Ma iyada hilib cuntay? It waxaa loo isticmaalaa nahay horena usoo sheegay. It waxaa loo isticmaalaa only xayawaan iyo wax waliba aan aqli lahayn sida dabaysha, cirka, dhulka, geedaha, wax walba something wax walba adiga aan aqli lahayn ayaa loo isticmaalaa. But you can't use uma isticmaali kartid bini aadan uma isticmaali kartid. Okay, you can't use human being. Right, waa isla fahanay. Negative with interrogative. diidmo oo ku jirta su'aal. Okay, haven't I played football? Aniga kubad ma ciyaarin miya? Meeshaas maxaan dhihi karaa? Have not I played football? Waa dhihi karaa long form ayad u qoran tahay. Marka waxaad dhahaysaa haven't. taasna xoogaa short form ku gaaban. waxaa aragtaa waxaad tiraahdaa haven't I played football? Ma aniga kubad ciyaaray? Hasn't he eaten banana? Ma isagaa moos cunay? Hasn't he cooked lunch? Ma ayada sorry. Haven't I played football? Aniga kubad ma ciyaarin miya? Hasn't he eaten banana? Isaga moos ma cunin miya? Hasn't she cooked lunch? Ayada qada ma karin miya? Haven't they read lessons? Ayaga casharadooda ma akhrisan miya? Haven't we drunk water? Anaga biyo ma cabin miya? Haven't you speak to me? Aniga ilama aadan hadlin miya? Hasn't it eaten meat? Ayada hilib ma cunin miya? والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. channelka subscribe noo saara, like and share. haddii aad casharkan wax aad ka fahantay hal kelmad ama hal ereyb allaha ka dhigo. waan fahmay waa mahadsantahay soo dheh waa mahadsantahay. Thanks for you watching.